madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdigu hogaaminayo ayaa saaka ka duulay gegida diyaaradaha ee magaalada Garowe iyagoona ku sii jeeda magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda waxbarashada, wasiirka deegaanka, wasiirka kulumeysiga, wasiir dowlaha madaxtooyada iyo waliba xiriirka caalamiga iyo mas'uuliyiin kale. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadal kooban saxaafadda ku siiyay intaas ka duulan garoonka diyaaradaha waxa uu sheegay socdaalkooda magaalada Muqdisho inuu salka ku hayo kulan ballaaran oo looga hadlayo barnaamijka higsiga nabadda Soomaaliya iyo shir dhexmaraya madaxweynayaasha maamulada dalka iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. madaxweynaha dowladda Puntland ma uusan faahfaahin ujeedka dhabta ah ee socdaalkooda iyo waliba cidda ay la kulmayaan ka soo kulankaasi. waxaan maanta u baxay magaalada Muqdisho oo ku maqnaanayo muddo maalin ah doobada maybe laba bari oon uga qayb galayo wada hadal laga xajoonayo geedi socodka nabadda Soomaaliyeed oo ay ka maarmuwaan ay noqotay in aanu wixii ra'yigayaga taladayada ah aan ku biirino si Soomaaliya hore u socoto, si Soomaaliya ay dowladnimadeedii ay u yaqleelato horan loogu socdo lagana gudbo dhibaatooyinka jira ee la soo gudboonaaday dowladnimada Soomaaliyeed. shirkaas ayaan aadaya oo maalin ilaa laba bari socon doona ka bacdina waa soo laabanaya intaas weeye socdaalkaygu maanta aad iyo aad u wanaagsan. socdaalka madaxweynaha Puntland ee magaalada Muqdisho ayaa wuxuu ku soo beegmay xilli ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaako oo weli ku mashquulsan yahay dhismaha xukuumaddiisa maadaama kolkii labaad uu baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka codsaday inay waqti dheeraad ugu siiyaan si uu u soo dhameystiro wasiirada ka maqan xukuumaddiisa.